السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada barnaamijkeeni badbaado action oo laba uga barateen inaan kusoo gudbino shaqooyinka laga soo cilaamiyo geeska Afrika. maanta insha Allah harjeen inaan dhowr muuqaal soo geliyo insha Allah. muuqaalka ugu horeeya waxaan rajeynayaa insha Allah inaan kula wadaago qaar ka mid ah shaqooyinkii maanta la soo geliyay. hay'adda loo yaqaano SRCS waa taqaanaan waa hay'ad inta badan bilaha bisha cas waxay rabtaa auxiliary nurse bay rabtaa pregnant and lactating women waxaana loo doonayaa baydhabo Soomaaliya. marka dhowr meelood bay uga rabtaa marka maxaa la yiraahdaa dadka shaqaalaha ah. qofkan background maxaa la yiraahdaa waxyaabaha looga baahan waxaa ka mid ah inuu shulgarayo waxyaabaha marka inta badan la xiriira protocols are strictly followed by and implemented, ensure the clinical and nutrition consultations cases following strictly protocols, provide individual health and nutrition counseling, refer the case of health facility in case of need. waxaan rajeynayaa insha Allah kulli qodobada looga baahan qofkan xagga auxiliary nurse waa la iska garanaya dadka caafimaadka soo dhigay garanayaan. waxaan xagga soo dhigi doonaa dilaa ka dhigo linkiga ayaan soo dhigi doonaa. linkigaas soo dhigi insha Allah. leedka waxyaabaha looga baahan yahay aqoonta qofkan aqoonta looga baahan yahay auxiliary nurse waxaa ka mid ah secondary certificate baa ka mid ah ama diploma in nutrition baa ka mid ah or health with minimum 2 years working experience with NGOs. hadduu qofkaas NGO la soo shaqeeyay 2 sano something like that ayaa ka mid ah. nutrition program waa qofka aqoon leeyahay, relationship with other people, good capacity to work with other friends team, good interpersonal skills communication. ingiriisda waa ku fiican yahay oo qori kara shaqada qofkii markaa raba inuu apply gareeyo wuxuu soo dirayaa ama ku dirayaa maxaa la yiraahdaa how to apply meesha ku qoran tahay waa email ku qoran email hamba lagu dirayaa. marka CV-ga qofka iyo cover letter-kii oo hal PDF ayuu iskaga dhigaya dadana uu dirayaa. deadline-ku waa 17 February insha Allah hadii la ka dhigo. sidaas leeg waxaa looga baahan yahay auxiliary nurse baa looga baahan yahay sidaan rajeynaya insha Allah. sidaas leeg waxaa looga baahan yahay auxiliary nurse baa looga baahan yahay sidoo kale Bardaale Soomaaliya. marka kulli shaqooyinku way isceshanayaan sida insha Allah waa loola macaamilo. waxaa kaloo iyaduna ay soo xaysay bisha cas Kismaayo ayaa waxa laga rabaa midwife qofkii markaa Kismaayo ku xidhnaan kara bisha cas insha Allah shaqada ha xareysto. kulli I think waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah xagga degree baa looga baahan yahay ama diploma nurse nursing ama midwife maternal child and or equivalent qualification baa looga baahan yahay. sidoo kale 17 bisha 17 insha Allah ayaa shaqadana la qorsheedu yahay la xareeyo. waxyaabaha kale soo xaysay waxaa ka mid ah MSF oo garanta. MSF-ku waa hay'ad caalami ah arrimaha caafimaadka ka shaqeysa. waxay doonayaan hospital clinical lead loo baahan yahay bay reach looga baahan yahay gobolka Bay. okay marka waxyaabaha qofka accountability-giisii way qoran tahay insha Allah. linkiiskan soo dhigi doona waad ka heli kartaan. shaqadan qualification laga baahan waxaa ka mid ah specialist in gynecology obstetric with extensive experience in service outpatient inpatient and emergency areas. waxaa laga baahan yahay at least 4 years certified work experience baa laga baahan yahay xagga gynecology-ga iyo department-kiisa. luqadda Ingiriisda waa laga maarmaan saa ula soco.
15 February ugu dambeyn ayaa shaqadaasi xareynaysaa waana by email linkiga halka how to apply ku qoran tahay insha Allah ka apply garee waxa Muqdisho specialist hospital wuxuu u baahan yahay umulis u baahan yahay waa laba umulis u baahan yahay afsmaal ku qoran yahay kulli qaybtani waa iska fududahay linkigeeda insha Allah xaq wada soo dhigi qofka CV-giisa iyo cover letterkii iyo shahaadooyinkii baa laga rabaa koobiya marka wuxuu ku soo hagaajinayaa marka Muqdisho Specialist Hospital ku soo hagaajinayaa toos buu keenayaa halka toos baa warqada loo keenayaa toos 14 February ayuu qofku keenayaa oo ku soo xareynayaa hadii la ka dhigo insha Allah taas marka intaas shaqooyinkaas waa qaybtii xagga caafimaadka insha Allah qaybaha kale akademiga waa soo gelin doonaa mar dhow insha Allah hadii la ka dhigo waad arki kartaan qaybta laakiin waxa gaar ahay shaqooyinka caafimaadka la xiriira oo marka aad iyo aad muhiim ah waxa rajaynayaa marka insha Allah qof walba ha xareysto qofkii marka arrin meelaha deegaamada ku nool isla markaana awoodi karaya you have to respectively aad u xareysan karto shaqooyinka waxyaabaha kale aan kugu dhiirin kale waxa kamid ah inaad CV-ga iska hagaajisto oo CV-ga ku hagaajiso sida ugu macquulsan isla markaana aad uga bixi karto shaqooyinka marka sida ay yihiin xaaladu tahay